Hello, welcome to my first English lesson tutorial. Kusoo dhawaada casharkii koowaad ee barashada luqadda Englishka. Waxaan ku bilaabi doonaa erayaasha ugu muhiimsan marka la baranayo luqadda Englishka ee la isticmaalayo oo ay ka mid tahay salaamaha ay isticmaalaan dadka ku hadla luqadda Englishka. Annagoo ku sii xijin doona erayaasha ugu muhiimsan ee marka ugu horeysa luqadda la baran doono. Haddaba maanta waxyaabaha aan kusoo qaadan doono casharkan ugu horeeya waxaa ka mid ah erayaasha marka ugu horeysa ee qof aad la kulantid aad isticmaaleysid markaa ku hadlaysid luqadda Englishka. Erayaashaas waxaa ka mid ah hello, hi, what's up oo intooda la macno ah haye ama hello oo luqadda Soomaaliga marka laga hadlayo erey ahaan waxaa ugu soo dhow ereyga marka la macnaynayo haye, sababtoo ah anagu waxaanu nahay ummad muslim ah, sidaa darteed waxaan isticmaalnaa qofka marka ugu horeeya aan la kulanno assalaamu calaykum. Laakiin dadka Englishku ama dadka ku hadla luqadda Englishka waxay isticmaalaan wax la yiraahdo hello, hi ama what's up oo intooda la micno ah haye la micno ah. Ereygan what's up mararka qaar wuxuu noqon karaa see tahay, laakiin hadda waxay ugu jirtaa what's up hadda waxay ugu jirtaa yacni hello oo kale ayay ugu jirtaa. Marka waa noocyo badan kala jiro, laakiin hadda waxaan ku bilaabeynaa saddexda nooc dhammaantooda waa salaamaha isku salaamaan dadka ku hadla luqadda Englishka and English speakers. waa salaamaha ay isticmaalaan saddexdan erey. Marka sidaan hore kugu sheegayba casharkan wuu sii socon doonaa ilaa mataqaanaa dad badan oo Soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan oo doonaya barashada luqadda Englishka. Ma rabo inaan kusii dheeraado casharkan maanta intaan ayaan kusoo gabagabeynayna. Marka uu isku day inaad fahantid micnaha kala duwan ee saddexdan erey ay leeyihiin oo ah hello, hi iyo what's up oo saddexdoodba la macno ah haye ama luqadda carabiga salaam ama